mahadleh waanu burcaan kaga soo bilownay socdaalkan boorman hadda ka nimi waxa weeye fariinta sidaan waxa weeyoon inaan dir gelino wixii ra'ayna hayna talana isiino dalkeena mushkilada haysta waxa u weyn in haystay aqoon dareen ano adaan dadku aqoon lahayn de horumar ma keeni karaan daadiyada wax noo dhaxeeya ما جرو هذيك نوع شخصيات لكن جاب جنريشن جاب أجره التعصب حكوا كانت أنا ودك كانوا وصعون كانوا مركا مانتا هذيك يبقى سوق علي وقت جي تخلصه ومكان نقول كبحنا ماشى هذيك سوق عليا هذيك ورئيسة وهذيك دويني وجروب هي ما جرت هوية مركا waxaan ku dardaarminaa inaydan kow wada shaqaynta barataan dhibaatada in haysata waxa weeye laba qof oo reer Soomaaliland oo meel wada joogo isku sansan fiican ma jirto wax kale ma waxa weeye qofka meesha madaxa ka noqda ilaa madaxweynaha wuxuu ku leeyahay ana wax ka sagaranaya wax talo dadka kala tashanaya ma jirto la'aameenaji قلت اللبيدة أنت إذا بشق السبع وحن شأن إنه إسحمشان وده شق السبع يسكتوا قاعدتان قفنا كي اللي بيسيد إلهي أبو ساد دوني سيده وين لا نورا تقف كوا شقين السبع ترى بعد حوي مجال هذا مجاله مكان مستقبل في عله حد بيكون تعالى كاريت دور كوا سومريا وبايب لاينكي إثيوبيا مكان صحيح بدأ أيوه مكان وحنا واقعين كرتان وحنا واحدين قبل الدولة ده حاجة قبل كرتان مكان إنتاز أنصامرني بخارة إبداع مشتري هذا أورجانيز كريسان ومتكي بتران كان $500 وحنا سنة وضع sanadkii wax dhig kartaan ilaa 20 kilomitir wado waa sameyn kartaa dadku wala organize gareeya taraskooda la helaa marka arkaan wax u qabanaysan day waa bacabsho wada u baahay baabuurka wuxuu soo sidaa waxay jecel inuu dhaqso ugu yimaado wixii halkan baxaya waxay qoyaan dekadii balbalay dhoof inay dhaqso u tagto iyaga marka ay baahan service idinku waxa u baahan in gaar gareysaan umada hadaan wax la gaar gareyn la isku keenin la tusin mustaqbalka waxay idantoodu waxay tahay deesaasi magaalooyinka u noqonaysa waxaan ka codsanaa u samee wuxuu sameeysaa guddi baa mashariga tago jaale samee guddidaas la macaamilaysan cadaaladaha kala wixii project adduunka sameeysan iyaga kala tashanaysan bandhay idinka bixinaya bandhayaga bixinaya ساس المجالين كقرص سمانس هذا creativity بالوبه innovation بالوبه الفكر ده كان اسكورة ده كان مجال ما كان سؤالك مجال كوكتيل هي سؤال إنه بدك الماشي من لك رشاق خليه معه من دون ما ندين كويديو بور ما نكنيمه سيليكان عباني يعني بيشن شركتي دقيقة كان كسوة عوضا بل السيلة قاسم ودي إيجا شيء كان وحياة كقبطان أنت روحي تاعي أتيرين عوال بطهاي محي هيدي ويهيجا حلال waxay imkay naga xiga ilaa 2 kiiloomitir oo qura ayaan halkan aan fadhino iyo maxay xuduudeynoo jira dadaal iyo dagaal iyo hawl culus baan ku jirnaa oo dalka intiisa kale aanu ku jirin meelaha qaar kood marka laga reebo meelaha xuduudda raacsan baan la mid ah baan isleenahay waxa kale oo noo dheer maadaama ay tahay magaalo ganacsiyeed hawsheeday leedahay shaqadeeday leedahay dadkii oo dhan baa isugu yimiday geeska Afrika oo dhan ayaa meesha ka ganacsada Soomaali iyo dadaan muslim iyo dadaan muslim ahayn labadaba way ka ganacsadaan Soomaali oo dhanna way ka ganacsataa horta waa meel ay isugu yimaadeen ummadda soo afka Soomaaliga ku hadasho oo dhan dadkaasaan isku haynaa dadkaasaan xoojinaa dadkaasaan
in hantidooda iyo bulshadooda iyo shaqadooda iyo waxooga oo dhanba aanu ilaalino in amnigooga sugnaa talabaad waxaa noo dheer in maxay ahayd amnigeega aanu ka shaqeyno Soomaaliland oo dhan waayo haddii fasahaadku uu wajaalo soo galo dalka intiisa kalena uu soo galaya hadday tahay mukhaadaraadkii waxa ugu fudud ee aan wada isticmaalno ummadeenu isticmaashaana waa bilwada qaadka ee dadkeenu qaadka ay leeyihiin haasi marka laga tago khamrigii baa yaala daraagiskii xashiishadii baa yaala hawshaas oo kale iyaduna hawlaheena badan marka inaga waxaasoo dhan waxay naga xadiday diinteena islaamka inaynaan hawsha iyo hawlaheegaasi aan la dagaalano marka mar labaad iyo mar saddexaad gudoomiye waan kugu soo dhaweynayaa hawsha aad weydiisay siliga dhulkani waa dhulkii dawladdu gacanta ku haysay markii ay dawladdu gacanta ku haysay waxay u baahatay wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa meesha ka dhisan oo calafkii xoolaha marka 3 kiiloomitir ayaa loo sameeyay in calafka xoolaha lagu maxay ahayd naaxiyo ay tahay marka taas bay ahayd bulshaduna marka wacyigelin la'aan bay u arkayeen in maxay ahayd wadooyinkii iyo biyihii iyo hawlahaasi isku socodkii baad naga xidhaysan magaalada intaas bay ahayd intaana hawsheeda labada barasaab baa ku jiray iyo wasaaradda arrimaha gudaha marka hawshaasina si fiican bay u socotaa wax cabasho kale maaha dadkuna sida loo sheegay siday tahay xaqiiqda waa laba aad iyo aad u kala fog marka maxay hayday gudoomiye magaaladu waa magaaladaadii gobolku waa gobolkaagii degmadu waa degmadaadii soo dhawow mar saddexaad dhulkan waa dhul dhoobaleeya oo maxay hayday dhismaheegii hawlaheegu ay u baahan tahay inay hawl badan laga qabto insha Allah hadii ay shaqo badan dadkeeguna waa dad aad u fara badan maadaama ay dadkeegu aad u fara badan yihiin magaaladani waa magaalo dhiya darajada taagan tahay iyo isma laha marka xaga la eego laakiin waxa weeye darajadeeda waxaad moodaa inay dhii tahay xagga sharciyada waxaan doonaynaa inaynu inta kor uga sii qaadno oo sii dalacno insha Allah hadii ay baydhaado oo ay noqoto marka gudoomiye waxaan doonaynaa inaan ka codsanana inaad dagaalka nala gasho oo nagala qayb gasho haday degmada tahay darajadeeda iyo haday degmada horumarkeega tahay aad iyo aad mahadsan